وعاسك مرحومة إكران مرحاشي وأهيد كوية تبنتير أجريوتي جردل يدعوع علوس وجير كذا إجارسيان دد إهل كذا كمدا وحال كان واه قبورها ميلتريجا دوسمراب يسوي مد قار كمدا قويس كذا قواسي أو كم ركسن وحد عي كذا كمدا حبناها جير كذا أيال الجري وحنا جب علوس الجارسية ماذا حقيقة جمعها iyadoo u geeriyootay markii dambe garaacis ay kula kaceen hooyadeed iyo adeer hooyadeed qaba sida lagu ogaaday baaris hordhac ah oo booliisku ay sameeyeen xubno kamid ah laanta dimi baarista ee booliiska iyo saraakiil ka tirsan saldhigga booliiska ee Dhuusamareeb ayaa meydka marxuumadan iyo labada eedeysane ee falkan lagu tuhmayo ka soo qaaday saqdii dhexe ee xalay tuulada Jicaloosin oo deegaanka Bohol u jirta 15 kiiloomitir dhanka kalena Dhuusamareeb kaga beegan dhanka waqooyi 45 kiiloomitir taliyaha booliiska ee Dhuusamareeb Dhame Burhaan Axmed Rooble oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay sida falkani uu dhacay iyo waxyaabaha ka soo baxay baaris hordhac ah oo booliisku wado waxaan soo gudbinay oo meesha aan ugu tagnay meydkii Allah u naxariisto gabar yar oo saqiir ahayd oo dhacdadaas ku dhimatay deegaankii dhibka ka dhacay gabadhaas deegaankii dhibka ka dhacay aan ugu tagnay waxa la yiraahdaa Bohol magaca gabadha geeriyootayna waxa la yiraahdaa Ikraan Mire Xaashi Guutaale da'deeduna waa 11 sano jir runtii waxa loo geystay dil arxan darro ah waxa loo geystay jir dil iyo dhibaato aad u badan iyo waxa weeye waa oo runtii qof islaam ah oo arka oo ka naxayo ama oo dareen ka qaadanayo kadib waxaan ku baxnay hawshayni ayaan guda galnay waxaan ku baxnay meeshii dhibka ka dhacay annagu ka ambaqaana safarkayni Bohol oo yaalay meedkii marxuumadda gabadha saqiirta ah ee ku geeriyootay dhibkii shalay ka dhacay Jicaloosin waxaan gaarnay goobtii dhibka ka dhacay waxaan soo xaqiijinay sidii wax ay u dhaceen goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliiska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xirnay karamsiim inaan baaritaan sameynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii marag muujin waxa la yiraahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go'go'ay oo xilligii la dilay gabadha waxaa ka mid ahay qaabkii loo dilay nabarro la gaarsiiyay madaxa gabadha waxaa go'ay cadad ka mid ah jirkeeda timaha cadad ka mid ah jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sidii u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayay inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumadda saqiirada ah oo la yiraahdo Ikraan Mire waxaan rabnay inaan markaas saxaafadda la wadaagno inay arrinkaas u gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdooyinka noocaas oo kala si looga digtoonaado bulshada reer gobolada dhaxana waxaan rabaa inaan u sheego kiiskan aan soo qabanay ilaahay idinkii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geystay oo waliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku fakar doonin ehelnimo oo la geey doono sharciga wixii ay ka helaan ay yeelo doonaan haddii Allah idmo waxaana hadda socda baaritaanadii ilaa haddana waxaan haynaa warbixino xoog fiican oo nagu filan ah dhanka kale aaba Mire Xaashi oo ah aabaha dhalay marxuumad Ikraan ayaa uga mahad celiyay booliiska gacanta ay ka siiyeen baarista hordhaca ah ee la sameeyay isagoo dalbaday cadaalad dhameystiran oo gabadhiisu ay hesho ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee maamulka Galmudug ee qaasan Dhuusamareeb magaalada madaxda arrintaas si fiican nagala shaqeeyeen ilaa xalan ku daba jirnay ilaa shalan raadaynay dadkii falkaas geysana waan soo qabanay waana la soo ciidanku amniga soo qabteen waana xiran yihiin anigu marleeda gabadheeda waa dhimatay waxaan u baahanahay cadaalad u baahanahay cadaalad amniga cadaalad u baahanahay garsoorka cadaalad u baahanahay gabadheeda in sharciga islaamka wixii uu qabo dadkeeda falkaas geystay la imariyo taadiyada loo geystay caruurta ayaa ah kuwa in badan dhaca waxaase dhib